السلام عليكم مقعد وموسى يوتيوب كان يداونيسان وموسى اسماعيل فضلا دا يوتيوب جنا كان كعصب تاي oo tahay markii kugu horeysay alla koronto subscribe saar videogana like saar share gray oo la wadaag asxaabtaada okay maanta waxaanu ka hadli doonaa BK arinkii BK sida wada ogtiin wuxuu yiri arin oo reer Muqdisho dhan ay ka xanaaqday oo ah sidaas soo socota aad baa u mahadsan yihiin taageerayaashayda reer Somaliland markaan carabka ku adkaynaya si kale maaha waan jeclay reer Somaliland aad baad mahadsantiin qalbigayga yaalin dhiigayga hadduu dhulka saa ugu dhaco wuxuu qorayaa Somaliland badriyo si wanaagsan barnaamijyo ayaa doonaysa dhinaca fakka inaad Kenya ku qabato kuma suurtagalin sidaad arintaa u aragtay dhib ma arko inay wixii tareen baan u haystaa ma sha Allah dadkayga dalkayga badan badri dad kale sibuu fanaanku isku soo koobay maadaama fanaaniintu daayihiin dhulalka oo dhan isagu haysa soo koobay maxaad ka leedahay inta Soomaaliga ku hadasho meel kasta joogto waa salaamaya ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaatay laakiin inta kale way iga badan tahay $1 haday siiyaan average baan BK oo nan wada garanayno oo yiri hadalkii hadda wada ognaanay wuxuu aaday Kenya wuxuu aaday inuu ku qabsado showgii waa la cancel qola ayaa ka cancelay isla markaa haddana way ka canceleen laba mar sidaan jeclahay inuu showga ka cancel dad badan waxay isleeyihiin nikani waa fanaan maxaa geliyay arrimo siyaasadeed arrinkaasi waa arrinka u soo fadhiistay inaan idinka jaahil bixiyo isla xalayto iidan waxaa soo hadashay fanaanada weyn ee caanka loo yaqaano Farxiye Kabayare waxay tiri hadallo inaba ka hadlayo iyada shooyaal ay u tagtay Kenya shooyaashaas ay ka hadashay waxay ugu dhacday tiri sida BK camal horta hore ma soo qaadan doono waxay ka tiri iyada dhankeeda kaliya waxaanu ka doonaynaa arinkii BK arinkiisa waxay ka tiri ayaa ka soo qaadan doonaa clipkaas marka inta yar ee BK ka tiri aan isla aragno daawasho wanaagsan waxaan ka rabaa inaan wax yar ka hadlo arinta BK iyo reer Muqdisho wax yar aan rabaa inaan reer Muqdisho xusuusiyo wax yar ay rabtaa in ay idin xasuusiso Farxiye Kabayare marka aynu ka dhageysano waxa ay xasuusinayso Farxiye Kabayare adduunkan waa laga tagayaa maanta waa adduun birina waa aakhiro ninka la yiraahdo BK sida dadku inta aqliga u saaxiibka ah ay ogyihiin Facebook ba hadda ka hor tan lagu furtaa wixii raba laga sheegay banaanadan waxay noo sheegaysaa wixii hadda ka hor dhacay waxaan doonaynaa wixii dhacay markii uu tagay Kenya ilaa wax qarsoon ayuu ahaa marka waxaas ayaan ka doonaynaa ma ka doonaynaa aniga Facebook page BK laga sameystay BK wax laga sheegay marka noo sheegday waxaan luq dhana noo soo marin warku waadix baan doonaynaa aniga Farxiye Kabayare hadda markii showgi laga kansalay BK marka maxaa dhacay BK laba mar showga laga kansalay wiilashaas ka kansalay waxay ka wadaa iyada shakhsi ahaanteeda ayaa mar waxay u tagtay Kenya show 2014 ay sheegtay waxa uu tagay dhaaday Kenya show isla clipka ay ku sheegaysaa laakiin aniga intaas ma doonayno waxa doonaya kaliya arinka BK marka waxay sheegtay in show laga kansalay markii kale ay dacwatay kadib ay showga dhigatay marka bal aan wadno islaantan waxa waaye arrimooyinka dhan ee Kenya wada ogtahay bal aan wadno midida ka ku galiya iyo kasaa kugu yiraahdo xanuun badan kasaa kugu yiraahdo xanuun badan Soomaali waxay tiraahdaa midida qofka ku galiya ee kasaa kugu yiraahdo waxa xanuun badan mid kasaa kugu yiraahdo bal dhageeso arinkan maskaxdaadana ka shaqeysii waxa tahay aan waxa la hadlayaa dadka garaadka leh dadka aqliga leh dadka wax bartay ma la hadlayo jaahil ma la hadlayo aniga waxa la hadlaa dadka waaweyn ee aqliga leh naagtaan waxay tiri qofka midida ku giliyo iyo qofka sidaan kugu dhaho ee kugu gilgilo keeba xanuun badan
waxay ka wadaa Kenya tagay showgii waa laga soo kansalay dadkii showga ka kansalay midida geliyay oo dadka saan ku dhahayn waa dadka baraha bulshada qabsaday warkii marba gees u wadwaday waa reer Muqdisho marka bal islaantan waxa u jeedaa inay BK inay difaacdo u soo mara dhigoos waxay u soo mara dhigatay inay BK difaacdo ha warku waa cid yahay ilaa waxay tiri qofkii midida ku geliyo iyo qofka sidaan kugu dhaho dadka sidaan ku dhahayna waxa waaye oo warka marba gees u wadwaday reer Muqdisho islaantan waxa waaye war caday wada bal aawadno markuu BK tagay Somaliland inuu dhaho Muqdisho barteeda iga joogto inta kale halkooda dollar iga badan hadalku la mid yahay idin sheegaa marka haday xusuusto idin ku yartay hadalkii BK Muqdisho meeshada iga joogto oo dhahay aba waxa lagu sheegaa hadalku la mid yahay waxaaba la rabay inuu ka hadlo BK iyada ka hadlayso waxa waa sababta ku dhahay naagtan waxay u maatay inay BK caadi u difaacdo sababtoo ah fanaan hadaa tahay oo Somaliland arabtid inaad show ku qabsato jaanis haysataa hadda ka hadal arinka BK Somaliland BK wuxuu u yahay passport dadkii hadda ka hadasho Somaliland hadda arinka ku aadan oo aad difaacdo BK sida farxi kabeere ee doonaysa hadda inay difaacdo BK hadii aad doonaysa inaad difaacdo BK passportkaaga waa BK difaac sida Somaliland show ugu qabsataa farxi kabeere waan u jeednaa caadi u difaaci bal aawadno waxay galaan iyo waxay gudaan aanan baarin inta xumaanta waday ee dhukura ii bixiyay ee caynayay qadaadooyinta igu aayay ayaan cuqdad yar ka qaaday waa u xanaaqay waxaan iri dadkan waa cunsuriyiinba waa iska dhaadhiciyeenno because maalin kasta ay soo caayaan maalin baa anoo Carmel Mall Minneapolis ka jooga habbi khaliifs aragnay hadal yar oo kululaysi ahaa ayaan dhahay farxiib hadaan tuur aadayna inaan ku raaco waay intee aadnaa intaan hargeysa ahaynaan dhahay ee hoyga fanka waay waa la dhahaa laakiin aniga ma ogi inay yihiin hoyga fanka muu socotid ma tagaay hargeysa walaalayaal waa idin jeclaa laakiin idin ma soo socdo adduunka dhan iska hora iyaalo ina iga qasaarisaan ma rabi show la kansalana kama bixi karo waa la joogay intii yarayd wati haddana xanaaq iyo cuqdad la igu qaaday anoo Nairobi joog waxaan is aragnay Iglan Saalax way iga wareysata arrinta waa tan si waadax uga hadloon dhahay walaalahay waa kululeysanayeen xogaa yar way kululeeyeen ana waa kululeysanay BK hadalkii aniga iga soo baxay iyo hadalkiisu waa isku mid maanta oo dhan warka ay soo waday wixii u soo waday clear qofkii aqli lahaa dareemi karo BK warku yiri iyo warka aniga aan dhahay waa isku mid waxay doonaysaa si cad inay u difaacdo BK si caaqiliyan maahan si cad ay u difaacaysaa si cad dadka dhan qofkii aqli lahaa fahmi kara dabaal warkiisa ma qiimeynaya aniga qofkii aqli lahaa fahmi kara waxay taagan tahay warkeeda soo sheegtay kadib waxay tiri tan aniga ay haysatay markaas amala BK hadda haysato BK caadi u difaacay macnaheedu waxay doonaysaa inay xagga show ku qabsato qofkii doonaya inuu xagga show ku qabsadana passportkaaga waa BK ka hadal hadda fanaan hadda tahay qofka walaalkaaga marka aad ku digato marka aad ma aragtay aad tiraahdo oo kugu macdahay oo qasaarana uu gaaray dad walaalihiis oo Soomaaliyeena ay xumeeyeen waxa dhan uu israacinaya Muqdishona gaar uu leeyahay hay dhaafto because meesha ugu badan ee looga diganay reer Muqdisho ahaayeen waxay dhahday qaswadeeno dhan dadkii maxaa waay warka wadwado waa reer Muqdisho sababtoo sidaas u leeyahayna waa sidaas waa ku sheegay aniga waxaan ku dhahay islaanta waxay doonaysaa inay BK difaacdo sababtoo ah waxay rabtaa passport sameeysigeeda dhaxmarow hala yaabin hadaad isdaaday maxay u difaacaysaa BK passport sameeysiga dhaxmarayo way dhameystirnaysaa ileen waxay doonaysaa maalin inay xagga tagto bal aawadno oo arkay wuuna xanaaqay waana bil aadan malaa'ig ma ah marka hadalka BK wuxuu la mid yahay anugu hargeysana tagaayadii aan dhahay maxaa ka dambeeyay inaan dadkii walaalahay ahaayeen aan ma u tagaayo iyo ma rabo inaan si fiican u barto asxaab badan aan ku leeyahay Bashaara Cali Baantay Sagal Mustafa Xasan Nuuri waxay dhahday dadkan oo reer Hargeysa oo sidaas aad dhahay waxa ka dambeysay oo hadda ka sokeysaba inaan saaxiibo noqon macnaha waxay ula jeedaa aan isleeyahay arinkaas haddaan xisaabiyay macnaha BK warkan wuxuu yiri xanaaq hayo dartiis xanaaq hayo dartiis kadib buu ka soo laaban doonaa wuxuuna sameyn doonaa inuu reer Muqdisho saaxiib ka dhigto
ma isleedahay adiga ahaan BK arrin muqdisho la saaxiibi doono komatiga noogu soo qor haddaad isleedahay adiga ahaan BK reer muqdisho saaxiib la noqona dadka halkan ku jira kii ii soo qoraayo Hargeysa rabtaa inaad tagto ama inaad Hargeysa ka soo haystaa rabtaa horta mid aan idin waxay dhahday dadka ii soo qoraayo inaa Hargeysa tagtaa rabtaa waxay aqligeeda waxa waa islaata waxa waa islaam wallahi aqli badan sababtoo ah waxay ogtahay videoan ay hadda duubeysa in la dhihi doono Hargeysa u baahan tahay Hargeysa inaad tagtaa rabtaa sababtoo ah hadda iska hormarayso waxay tiri aniga waxa waa Hargeysa uma baahni camal warkaas camal ay wada marka haddaadan u baahneen maxaad u difaacaysaa BK maxaa kuu geey inaad difaacdo BK adeer waxba hanoo sheegin anaga warkaaga nuguma socdo kaliya waxaan dareemaynaa inaad baasaboor sameysanayso oo aad doonayso Hargeysa inaad tagto kolley islaantaan way hadashay islaantaan way hadashay waxayna ka hadashay wixii aqligeeda waxay ka hadashay sababtoo ah waxay doonaysaa inay show ku qabsato halkii la dhahay Hargeysa hadda show ku qabsanaysa adeer hadda ka faa'iideyso baasaboor sameyso baasaboorka maahan inaad migration iyo waxaas tagto waxa waaye BK ka dhigo BK hadda ka hadal arrinkiisa wallahi waa lagu soo dhaweynaa sida madaxweyne camal lagu soo dhaweynaa anaa ku dhahayo horta ay ka hadalno arrinka BK waxyaalaan yahay taabto ninkii BK yaqaano waa yaqaanaa dhammaan Soomaalida BK taageerto waxay u yaqaanaan kaliya inuu yahay fanaan kulley BK fanaan kaliya maahan waa nin ah askari Somalilander waa askari Somaliland ah qof askari Somaliland ah ma isleedahay meel uu ka soo jeedo ayuu wuxuu uga soo horjeesanaa meel kale anoo hadda meeshaas askari ka ah ma kula tahay inaan Muqdisho xogaa inaan imaado wax ku sameeyo oo xagga atigi doon ilaa waxaaba ahay askarin waxaa loo baahayaa inuu dalkiisa difaaco BK-na afkiisa uu ku difaacayaa Somaliland marka islaantaan waxay doonayso waan ogaanay oo farxiye kaba yare BK-na horta hore hadduu hadda Muqdisho intaas dhahay xogaa Muqdisho wax ay warkaas kusoo kordhinaysa malahan iyo wax ay ka bedelayso iyo wax ay asaa dhahay asleena dhibe asma dhino aslee dhibe Muqdisho qof ay rabto ma jirto okay waa kuma asantahay daawashada videogan aad daawatay fadlan haddaad daawato videogan oo aad ka hesho please share garay oo la wadaag asxaabtaada haddaad YouTube-ka ku cusub tahay subscribe waa kuma asantahay